muuqaal intuu ka duubay ayuu ka dhoofay guud ahaan Kenya gaar ahaan magaalada uu ku noolaa ee Nairobi. Ninkan ka hadlayna waa Mi Hanad ama Hanad sidaad u taqaanid oo barta TikTok isticmaala. Ninkani muddooyinkii ugu dambeeyay ama 3 sano u dambeysay waxa uu ku noolaa magaalada Nairobi. Sweden ayuu ka yimid markiisa hore oo uu dhalasho ka haystay. Sweden waxa uga socotay dacwad ka dhana gabar uu la sameeyay gogol dhaaf xaaraan ah kadibna muuqaal uu ka duubay. Global Fertility Center waxaad ka helaysaa daawaynta xanuunada keena dhalmaanta ragga iyo dumarka. Ku dooro baaritaano la hubo iyo daawaynta sare leh. Rumeeriyadaad waalidnimo oo dooro Global Fertility Center. Uiga farxadda lamaanaha. Booqo hadda ama ka wac nambarada ku muuqda. Muuqaalkii uu ka duubay mobilkiisa ayuu ku jiray muddo dheer kadibna gabar ay wada sheekaysteen oo iyaduna caan ah oo barta TikTok isticmaasho lagu magacaabo Xafso ayaa soo qarxisay iyadoo ku xumaynaysa markii ay isku dhaceen. Gabadhii Sweden ku nooleed gaar ahaan waxay ahayd gabadhaasi gabar aad u daayar oo aan qaanuunka lagu qaangaaro ee dalka Sweden aan wali gaarin. Dabcan 18 sano ayay ka yarayd. Muuqaaladii markay aragtay iyadu ma ogeyn in naagi soo qarxisay waxa ay dacwad ku oogtay iyadii iyo qoyskoodiiba ninkan Hanad lagu magacaabo. Muddo 3 sano ku dhawaad ayay socotay dacwadaasi hase yeeshee markii dambe la ogaaday inuusan isagu si kasta u soo deyn oo gabar ay wada sheekaysanayeen banaanka keentay waa la iska cafiyay. Ugu dambeyn markuu ogaaday in la cafiyay oo uu wadankiisa Sweden ku noqon karo ayuu muddadii uu halkaas joogay gabadhii uu qabay ay kala tageen. Wiil baa u dhashay. Intaa kadib maalmihii ugu dambeeyay waxa uu soo watay gabar bartiisa TikTok muuqaalo kula duubayay xaaskiisana ku xumaynayay. Hase yeeshee maxaa dhacay? Gabadhii sida ay haasawa wadaag u ahaayeen muuqaalo iskula duubayeen ayaa hal mar waxa la arkay muuqaal aan wanaagsanayn oo gabadha indhaheeda iyo jismigeeda intaba laga dareemayo inay nooc kala tahay. Waxa dhacday in muuqaalkii si goosgoosa ama si qaab yar ah loo soo daayay ama dhinac laga tusay dadweynaha kadibna markii ay saacada ka soo wareegtay gabadhii ay afka furatay oo tiri aniga oo aan is ogeyn ayuu muuqaal iga duubay kadibna waxaan soo baraarugay aniga oo si kala ah madaxayguna uusan caadi ahayn. Waxayna tiri waxa uu isiiyay dawooyin iyo kiniino kala duwan maskaxdayda iyo maankayguna ma joogin muuqaal ayuuna xoog iga duubay. Isaguna wuu diidan yahay hase yeeshee isla markii uu muuqaalada ka duubay gabadhan saacada kadib waa uu ka duulay Nairobi. Istanbul ayuu ka soo hadlay isagoo transit ku ah ama diyaaradii kale oo Sweden geyn lahayd ku sugaya kadibna wadankiisa Sweden ayuu sidaas ugu noqday. Hanad waa nin meel walba uu tago anshaxumo iyo foolxumo looga soo cayrinayo. Sweden arintaas ayuu 3 sano banaan joog uga ahaa. Haddana Nairobi gabar Soomaaliyeed waalidkeed ka dambeeyaan ayuu muuqaal intuu ka duubay iyadoo qaawan oo daraagis iyo kiniino maandooriya ka dharjiyay muuqaal anshaxumaa ka duubay ayuu awood ahaan ugu rikaataynayaa. Gabadhiina hadda waxa ay taagan tahay marxaladeedu meel aad u daran. Ninkani wuxuu caadaystay inuu gabdhaha ugu ciyaaro sida aad u jeedaan miduu ilmo ka dhalo ka cararo miduu muuqaal ka duubo miduu galmo xaaraana la sameeyo kadibna mobilkiisa laga soo qarxiyo iyo mid uu aflagaadeeyo. Hadda gabadhii waxa ay leedahay waxaan dacwad ka furan doonaa anoo Kenya jooga wadankiisa Sweden ayaana dacwadaas anoo Kenya jooga uga oogi doonaa. bal waynu arkayna halku ku dambeeyo iyo gabadhaasi dacwadda ay la tiigsato inay la heli doonto iyo